ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وحاسدك لأينا في مبضن ذاتك وناك لوشيرو بودا روحا ودقيستا كدبنا كبقما إلهينا وكيل سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. marka labada iyadaba dadka u yeeray oo maxay ahaydayay madallada iyo murshidaadka iyo kuwa loo yeeray oo annaga wadaadada wax jeedinaya iyo dadka loo jeedinayaba ilaahay subxaanahu wa tacaala qolooyinka aanu kasoo hadalay iyo labada aayadood kuwa ay maxay ahaydayay ilaahay uu wax ku tara allah inaga yeelo. xaqiiqatan ani mawduuc baa laii dhiibay qur-aanka ku saabsan iyo waxa nagaga aadan qur-aanka. waa marka koowaad ee horta qur-aan waa kalaamullah wey, waa xablullahi almatiin, waa kitaabullahi tabaaraka wa tacaala alladii laa ya'tiihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanziilun min xakiimin xamiid. laa shaka walaa rayba kitaabka ilaahay inaad garanaysaan oo qur-aanka aad jeceshihiin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maxay ahayday kalaamkiisa uu qalbigiina ku weynyahay, laakiin min baabi dikra baa wadaadaduna u doorteen, annana aan mu aqbalnay, dee idinna waa qaadanaysaan insha allahu tabaaraka wa tacaala idinkoo wadaadadii ah oo culimmadii ah oo mutaxajibaadkii ah oo murshidaadkii ah oo hoyooyinkii ah oo gabdhihii ducada qabay ah oo kuwii khayrka jeclaa ah. haddana khayr lagama dhergo. laa shaka walaa rayba qofka muslimka ahi inuusan khayr ka dhergayn ilaa uu ciidda ka hoos maro oo uu rabbi kala kulmo oo ilaahay ku abaalmariyo wixii uu soo qortay. ilaahay kitaabkiisa qur-aanka wuxuu ku yidhi isagoo kitaabka qur-aanka sifaynaya ama ummadda ka daadejinaya kitaabkan wuxuu yahay. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdi bihi allahu man ittabaca ridwaanahu subula salaam wa yukhrijuhum min adh-dhulumaati ila an-nuuri biidnih wa yahdiihim ila siraatin mustaqiim. walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiiqatan sida uu ilaahay u wanaagsan yahay oo u wacan yahay oo u sarreeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala khaaliqu lkhalqi yahay wa khaaliqu lbashar oo ilaahay yahay subxaanahu wa tacaala alraxmaan alraxiim duljabaruuti walmalakuut oo ilaahay qadarkaa leeyahay, haddana kalaamkiisuna waa la socda oo darajadaa buu leeyahay oo ilaahay baa ku hadlay subxaanahu wa tacaala. waa kitaab sharaf leh wa inahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun. waa kitaab mubaarak ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa fii gayri maa aayatin aayad iyo aayado badanba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku nuuxnuuxsaday kitaabkan waxa uu yahay. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waxaa dhaba inuu idin yimi oo xagga allena idinka yimi kitaab qiimo badan. qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin. nuur iyo ilays iyo iftiin iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr uu la doonay basharka ayuu ilaahay soo dejiyey kitaab qiimo badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay ilaa dunidan laga dhaxlayo oo laga rogayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala lagaga hortegayo wixii lagu dhaqmi lahaa, dadka ay ku kala hagaagi lahaayeen, maslaxadooda adduuniya mid aakhiro ayuu ku jirtaa. min allahi nuur kitaabun mubiin yahdi bihi allahu. kitaabkan ilaahay wuxuu ku hanuuniyaa oo uu ku hagaa man ittabaca ridwaanahu. ilaahay wuxuu ku hanuuninayaa wadooyinka wan wanaagsan, weliba kuwa ugu wanaagsan ayuu noloshoodana
إلهي برواقية برارو قلنيا الدنيا دودنا إلهي ودرجينيا آخرة دودنا إلهي سبحانه وتعالى ما أصلحيا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم وحو إلهي كقساريا قولد كتاب كان رعدايا وقادتا أو درجيسا من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات وحو كقساريا قد عرضا قلبي بوضا إفيا قلبي بوضا دلاليا إنه ذا دلاليا وإلمينيا دقوه ذا دكي بكبحيا إلهي سانتو ذا ترسنانيسا لابتو ذا هقاقيسا إلهي سبحانه أوركوذو إلهي أبكسينيا عذرضو أوغا قادايا واتقانان وشفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين إلهي سبحانه وتعالى وحبضا أي إلهي كترى